المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وزير الدولة وزير كحيانك حبناها نقل جوج لبضع أقل iyo gudiyadooda arrimaha bulshada xubnaha matalay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo maaragtay hadda xilka sii degaya iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka hadda xilka ku wareegaya dhammaan agaasimayaasha iyo dadka ka soo qayb galay oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib waxaan idinkaga mahadcelinayaa marka koowaad kasoo qaybgalka ka soo qayb gasheen munaasabadan xilka ay ku kala wareegayaan labada agaasime ee wasaaradda caafimaadka iyo ahamiyadda aad siiseen oo howlihiinii aad ugu soo tagteen waan idinkaga mahadcelinayaa. sidoo kale waxaan sagootineynaa walaalkeen agaasime doctor cabdinaasir oo muddo wasaaradda usoo shaqeeya howlo wanaagsanna soo qabtay xilkii maadaama uu yahay meerto qofba maalin uu imaanaya wasaaradda waxaa waaye wasaarad dowladda Soomaaliya qaranka ayaa iskale maalinba qof baa imaanaya marka waxaan rajaynaynaa meesha uu joogay meel ka wanaagsan oo si degdeg ah ku tago ayaan rajaynaynaa. agaasimaha cusubna waxaan u rajaynaynaa ilaahay inuu la garab galo mas-uuliyadda culus ee loo magacaabay asagana meeshii cabdinaasir uu keenay meel ka sii fiican uu nala gaarsiiyo annagana kuwii garab ku siiya allaha naga dhigo. intaa kadib wasaaradda caafimaadka ahmiyaddeeda aada loo tilmaamay waa run caafimaadka dalka oo dhan ayay mas-uul ka tahay ahmiyad ballaaran bay leedahay laakiin ahmiyaddaasi dowladdeenna ilaa hadda ma siinin ama ha ahaato tabar ama ha ahaato tacaddi laakiin ahmiyaddii loo baahnaa weli lama siinin. laakiin waxaan rajaynayaa in la gaari doono maalinba wax baa lagu darayaa meeshaan lama joogin shalito maalinba wax baa lagu darayaa marka dambe waa gaari doonaa meesha aan rabno oo aan ku faraxsannahay hadduu ilaah yidhaahdo. waxaa dhacda markii miisaaniyadda la ansixinayay golaha wasiirada hortooda waxaan ka sheegay waxaan ku yidhi annaga waxaan idinka codsanaynaa isbitaallada gobollada oo dhan wax dhakhaatiir ah oo jooga ma leh wax takhasus leh horta oo jooga ma leh meel dhakhaatiir xataa GB ah ay joogaanna waa yartahay gobollada wax kastoo dhaco qofkii xabad ku dhacday wax kastoo dhaca diyaaradaa lagula soo cararayaa qarash badan baa ku dhaco ku baxa dayacna waa ka dhashaa daahitaankaas inta diyaaradda la raadinaya marka waxaan codsannay 100 dhakhtar oo takhasus leh oo magaalada muqdisho ku nool min 2500 ha noogula dar miisaaniyadda 100 dhakhtar konton iyo kow digfeer keliya noo soo saaray maan dhowtaan shahaadadooda aniga gacantayda ku saxiixay inta kaloo dibadda takhasusay ka soo qaadatayna way joogaan 100 dhakhtar min 2500 mushaarkoodu yahay maamul goboleedba 2 isbitaal haddaan u geyno 10 qof shanta maamul kiiba 20 dhakhtar haddaan geyno oo takhasus leh waa 100 dhakhtar min 2500 bis noogu qor miisaaniyadda waxaan idin ballan qaadaynaa in aan loo baahanin diyaarad in dad lagu soo cararo oo meeshooda lagu xalliyo wax walba ayaan idin ballan qaadaynaa. maysan dhicin waxaa la yidhi sanadkan wasaaradda waxbarashada 3,000 soo dalbatay oo macallin ayaa laydinka hormariyey sanadka dambe allah idin gaarsiiyo. waxaan rajaynaynaa sanadka dambe ma fogo in rayadaas maaragta sanadka dambe laga dhamayn doono ayaan rajaynaynaa oo maxay ahayd dib u eegista juun 100kaas dhakhtar weli kama tanaasulin 100 dhakhtar oo takhasus leh in mushaarna loo siiyo kamaanan tanaasulin. waxaan rajaynaynaa dib u eegista 6 bilood kadib in loogu dari doono budgetka isbitaal walba oo regional hospital markaan geyno 10 dhakhtar oo takhasus leh baahida gobolkaas way daboolmaysaa. marka waxaan rajaynaynaa marka dadka markii hore dalka ma aaminsanin xataa magaalada muqdisho dadkii dhaawac soo gaar ama dhib soo gaara dibadda lagu ordi jiray haddana waa la soo aaminay dalkii kalsoonidii baa soo noqotay wax walba inta badan dalka lagu xalliyaa gobolladina waxaan rabnaa saas oo kale kalsoonida in usoo laabato dhakhaatiirta muqdisho joogta gobolladii loo qaybiyo maxay ahayd gobol walba meeshiisa wax lagu xalliyo ayaan rajaynaynaa hadduu ilaah yidhaahdo. maalin dhaweeto dadka markii xil aad qabato oo eedo lagu raadinayo inta boostiyadii aad soo dhigi jirtay la daba galaa marka maalin dhaweeto nin saaxiibaday ka mid ah ayaa wuxuu soo qaatay boostii 3 sano ka hor aan soo dhigay oo aan lahaa wasaaradda caafimaadka gobollada wax dhakhaatiir ma joogaan waxaa loo baahan yahay dhakhaatiir in gobollada la geeyo si baahida gobollada looga maarmo
dadka markay wax noqdaan diyaaradaha lagu soo ordaya bostiga soo qaatay wuxuu yidhi wasiir shalito wasaaradda waad dhaliilaysa maanta adigaa joogo ma waxay kaa ahayd muxuu ahaa campaign iyo hadda maad wax ka qabatid marka waan rajaynayaa waagaasna fi hami igu taagnaa buu ahaa aan soo qorayay haddan weli hami igu taagan waaye welina ma aragtay waan u dagaalamahayaa waxaan rajaynaynaa inaan ka dhabayno arrintaas hadduu ilaah yidhaahdo aad baa umahadsantihiin dhammaan kasoo qaybgalayaasha agaasimaha cusubna xilka allah la garab galo waa u ducaynaynaa garabkiisana waan nahay aad baa umahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu